السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo kanaalkiinii weydiinay warcelin. waxaynu daawadayaal muuqaalkan ku soo qaadan doonaa 20 su'aalood iyo jawaabahooda oo ku saabsan diinta islaamka. isku day daawad inaad ka wada jawaabto 20kaas su'aalood. fadlan daawade muuqaalka like saar, asxaabtaadana u share garay, kanaalkana inagu soo biir. sheeg aayaddii ugu horreysay ee kitaabka towraad ee soo degtay. jawaabtu waa bismillaahi araxmaani araxiim. sheeg hadyaddii ugu horreysay ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam lagu siiyo magaalada madiina. jawaabtu waa madiibad rooti ah, subag iyo caano. kumuu ahaa mushrigii ugu horreeyey ee lagu dilay dagaalkii badar. jawaabtu waa al-aswad binu cabdilasad almaqsuumi. tuma ayay ahayd gabadhii ugu horreysay ee hijrootay. jawaabtu waa umu kalfuum bintu cuqba binu abi mucayd. waa kuma qofkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqa luqadda carabiga. jawaabtu waa nebi ismaaciil calayhi salaam. waxaa sheegtaa hadalladii ugu horreeyey uu ku dhawaaqay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee markuu yimid magaalada madiina. jawaabtu waa yaa ayuhannaas afshu salaam وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا أبوه تفسير القرآن الكريم كسند هان كوريا. جواب ومالك بن أنس. كم وها مسلم كي أبوه هاجري دلك حبشا. jawaabtu waa xaatib binu camar. yaa ugu horreeyey ee surweel xirtay. jawaabtu waa ibraahim calayhi salaam. yaa ugu horreeyey ee seef ku dagaalamay. jawaabtu waa nebi ibraahim calayhi salaam. yaa ugu horreeyey ee maamulay baytulmaalka muslimiinta. jawaabtu waa abu cubayda binu jaraax radiallahu canhu. sheeg buurtii ugu horreysay ee la dhigo dhulka. jawaabtu waa buurtii abi qubays oo ku taala magaalada makka. waa kuma qofkii ugu horreeyey ee wax ka qora axkaamta qur'aanka kariimka. jawaabtu waa imaamu shaafici, allaha ka raali noqdeen. kumuu ahaa daacigii ugu horreeyey ee islaamka. jawaabtu waa saxaabigii la odhan jiray muscab ibnu cumayr radiallahu canhu. yaa ugu horreeyey ee dawaafay kacbada. jawaabtu waa malaa'igta. yaa ugu horreeyey ee tiriyey gabay. jawaabtu waa nebi aadan calayhi salaam. kumuu ahaa saxaabigii cabay dhiiggii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. jawaabtu waa ibnu zubayr. aad ayaad u mahadsantahay daawade. komitiga waxaad inooga reebtaa su-aashii kula yaabka badneed iyo tii kula adkeed iyo inta su'aalood aad garatay. fadlan daawade, intaynu mar kale ku kulmi doono waxaad sii daawan kartaa labada muuqaal aynu kuu saarnay shaashadda. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.